9 diyaaradood oo ay leeyihiin milatariga waddanka Ruushka ayaa gaaray waddanka Kazakhstan. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay maanta oo Jimco ah in ay 9 diyaaradood oo sida ciidamo ay u direen waddanka Kazakhstan. Dowladda Ruushka ayaa hore u sheegtay in 2,000 oo askari oo si degdeg ah loo diyaariyay ay u dirtay waddanka Kazakhstan. Dowladda Kazakhstan ayaa muddooyinkii dambe la daallan dhacaysay mowjado mudaharaadayaal ah kuwaas oo qabsaday meelo badan oo ka mid ah waddanka Kazakhstan. Magaalada ugu weyn waddankaas ee Almaty ayaa la sheegay in garoonka diyaaradaha ay galeen kumanaan kun oo careysan. Hase yeeshee, wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada waddanka Ruushka ay gacanta ku hayaan garoonka diyaaradaha ee Almaty. Juqraafi ahaan, waddanka Kazakhstan waxa uu deris leeyahay waddamada Ruushka iyo Shiinaha, waana bagcad istiraatiiji ah. Waddamada Ruushka iyo Shiinahuna ay aad ugu xisaabtamaan. Lama oga waxa iska beddeli doona xaaladda waddanka Kazakhstan. Tegitaanka ciidamada Ruushkana lama oga waxay ka beddeli doonaan waddankaas.